ee la isku khilaafsan yahay hilibka geela keliya maaha. waxaa ka mid a qof rag iyo qof dumara oo ajnabi kalaa jirkooda hadduu istaabto waysada ma jabaysaa. waxaa ka mid a qofku hadduu xubankiisa taranka taabto waysadu ma jabaysaa. marka waxaa isku xukun ah waxyaabaha muslimiintu iyo culimmada muslimiintu isku khilaafeen waysada ay jebiyaan iyo inayna jebin laba qof oo kala madhab duwan oo laba kala madhab haysata salaada ma isku xidhan karaan? su-aashu sidaasay uga guda weyn tahay masalada hilibka. maalan fuqahada xanafiyadu ma qabaan dumar la taabtay iyo xubin taran oo la taabtay midna wayse ayna jebinayso. wadankana waa inala joogaanoo jaaliyadan iyo dadkan hindigihii waa madhab xanafiya ay haystaan. shaaficiyadu iyo ma qabaan kuwa lamidihii hilibka geela wayse inuu jebinayo. marka culimadu waxay ka hadlaan dadka kala madhabka duwan ee ku kala duwan waysada waxa jebiya. kow, amaba salaadu waxay ku asaxdo. waxyaabaha salaadu ku asaxda ama jebiya waa lagu kala duwanaan karaa. sida ilaad salaada ka baxda inaad wayse qabta ma qasaba. inta hore waxaa ah laakiin atixiyaadka haddaad dhammayso intaadan salaamo naqsan haddii waysadu kaa jabto salaada ma kuu jirta mise kuuma jirto? ma nin dhameeyey baad lamid tahay mar haddaa atixiyaad dhamaysa assalaamu calaykum baa dhimane oo assalaamu calaykum taa iska wadanaday wayse kaa jabtay mise waa inaad kow soo bilowdaa? masale culimmada isku hayaan iyo madaahibtu ku kala duwan yihiin wey. waxaan ugu mashhuursan shaafici iyo xanafiyada. qolyahan xanafiyadiihii atixiyaadka markaad dhamaysa waysadu hadday kaa jabto salaaddii waa ku dhammaystiranta. waana kuwan masaajidoodii aan la tukanee inala wada degan waayo oo intaan caafimaad hindiya u tagno dee masaajidoodii ku tukannaa sooma. qoladii south africa tagtay masaajidoodii ku tukadaan. madaahibta muslimiintu marka dadku way wada joogi karaan iyagoo madaahib kala duwana. halkaa way haddaba waxaan rabaa saa u leeyahay raalli ahadaa diro dheeraatay haddii lagu kala duwan yahay waxyaabaha waysada jebiya ama waxyaabaha salaada jebiya madaahib muslimiintana la kala raacsan yahay dadkii salaada ama isku xidhan karaan oo ma'muum iyo imaam ay isu noqon karaan. jawaabta sidaa saxda ahaa ilaa shaaficiyada maahane. fuqahada shaaficiyada iyagu waa diideen in adiga madhabkaaga waysadiisii ay jaban tahay ood ku og tahay inaad salaad ku xirato. waxa la isku hayana waxaa weeye ma ictiqaadka qofka ma'muumka ah baa la tixgelinayaa mise ictiqaadka qofka imaamka. imaamku wuxuu haystaa salaadiisu inay sax taho wax ka jabiyo uusan samayn. ma'muumkuna wuxuu leeyahay sax maaha wax kaa jabiyaad samaysa. haddaba labadan qof ee salaada isku xiranaya ma imaamkaa la ilaalin oo hogaankii ah oo dadku ku wada xiran yihiin sida isagu saxda u arko mise qofka ma'muumkaa la ilaalin siduu isagu saxda u arko? cinda jamhuuri ahli lcilmi imaamkaa la eegayaa. ma'muumkuna hadduu ku xirta imaam isu haysta salaadiisu inay asaxday uu ku xidhan karaa way asaxaysaa. bacda daalika xadiidka daahirkiisana saasaa u dhow. nabig alay slam imaamka markuu la hadlay wuxuu yihi yusalluuna lakum imaamyaal baa idin tukanaya. dad kala duwan oo imaama oo maalinba mida ama duruufo kala duwan imaam idinku noqon doona. fain asaabuu falakum walahum wain asaa'uu falakum wacalayhim. hadday si fiican u tukadaan ay wanaajiyaan iyagana ajirkooday heli idina ajirkiina helaysa. hadday wax khaldaan ama xumeeyaan ama qalloociyaan idinku ajirkiinaad leedihiin wixii dembi ana iyaga dushooda way. walidaalika xadiid kale nabiga ku yihi alayh isalaatu wasalaam alimaamu daaminun waalmu'adanu mu'taman. imaamku wuxuu damiin ka yahay oo mas-uul ka yahay ansixitaanka salaada dadka ku daba tukanaya. damaanaddaa wixii ka xumaadana deynteeda iyo dushiisa wey. muadinkana isagaa dadka u aadaamaye waxaa lagu aaminay waktigiinu soo galay
ومركو أدامه dadku way isaga tukanayaan way isaga afurayaan haday soomanaayeen maghrib tahay wixii uu khaldo isaga la aamino amaan u dayacay way saas darteed buu imaamku hadaa rukuucda ku soo gaadho faatixadii adoon aqriyin inta la rukuucda dushiisa ay u noqonaysaa wax badan buu ka xambaarayaa imaamku mas'uuliyadda imaamnimada saas darteed mas'uuliyad sahlan maaha ومسألة خلافية سيئة راجحة عند أهل العلم جمهور توضع ظاهر كالدليلكم وحال تحقلنا يا اعتقادك قفك إمامك هذا يسوي السيدة وأقيهي أمام مذهب يهي صلاة دي سنة الصحرية ويسيدي ستهي واتكو حيران كرتا وحيك خلدمانا دين بقد يسير الراعي سوى بالله توفيق الله